Soomaalidu waa isku diir waana wada dungooba Soomaalidu waa isku diir waana wada dungooba wadul walaalaha diintooda ay mitahay duriyad wada dhalatay dhaqankoodu caayb lahayn afkoodiyo dhaqanka hidahooda uu mid yahay deegaanku ka dhaxeeya calaankooda dahabiga ee allow isku soo durabi daa'im bahatee haweenka meel badan waxa laga yiraahdaa haweenku waa laf dhabarta bulshadeena laakiin macna ahaan hoos looma sii galo wadanka intii aan ka shaqeynay gudihiisa maray safarada ku galay meel walba waxaan ku arkay waxa weeye wax qabadka haweenka hooyo walaal eedo habarir kulli waa dadka ka casubixi kalaha ma aragtay shaqeeya keena wixii la masruufan lahaa gurigaas waxay u shaqeeyaan siyaabo kala duwan khudaar ha gadaan xataa qaad ha gadaan dukaan ha gadaan meel ha soo xaaqaan wax allaalo wax ay sameyn karaan haweenka waa dadka xilka iska saara gurigaas inuu maanta digsi ka karsan yahay dhaqan ahaan bulsho ahaan wax nagu cusub weey waa waxyaalaha laga dhaxlay intii burburkan uu dhacay in dadkii ay haweenka kaliya culayska uu saarnaado haweenka waa inaan u fududaynaa sidii ay horumarka nolosha ay ma aragtay hore inaan u furno waxa la yiraahdo credit ama bangiyada ay ka heli karaan ma aragtay lacag ay ka deynsan karaan waa in aan ku dhiirigelinaa si ganacsigooda ay u balaarin lahaayeen waa inaan ku dhiirigelinaa sidii ay waxbarashadooda u soo buuxin lahaayeen sidoo kale waa inaan ku dhiirigelinaa inay siyaasadda ka qayb qaataan